kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada qaybtan waxaan ku eegaynaa dagaal iyo duqeymo toos ah oo xalay ilaa habeen hore ilaa saakeedan ka dhacay qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Ceelbuur waxaa ku sugan ama fariisin ay u tahay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab madaxdooda ugu soo sareysa ama horjoogayaashooda ugu soo sareysa sida kaba ku tukaday iyo horjoogayaal asaga la mid ah iyo xalay ilaa saakay waxaa duqeymo toos ah ay ka dhaceen degmada Ceelbuur waxaana lagu soo waramayaa in halkaas lagu beegsaday dagaalyahano iyo horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaa lagu soo waramayaa sidoo kale in Ceelbuur duqeynta ka dhacday guud ahaanba lagu burburiyay fariisin halkaas Al-Shabaab ay ku lahaayeen ay markii horena ka soo awaawuli jireen weerarada ay ka geystaan qaybo ka mid ah bariga gobolka Galgaduud duqeyntan caawa xalay ilaa shalay ku socota degmada Ceelbuur sidoo kale waxay hordhac u tahay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la rajeynayo in gacan ku haynta degmada Ceelbuur markii ay la wareegaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed uu noqdo qofka ugu horeeya ee tagaya halkaasna ku booqanaya ciidanka xoogga Soomaaliyeed ee halkaasi ka sifeeyay ama ka saaray kooxda Al-Shabaab madaxweynaha ayaa la rajeynayaa inuu gaaro halkaas maalmaha soo socda sababtoo ah waxaa la filayaa in duqeyntan xalay ilaa caawa ka socoto degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud in Al-Shabaab halkaas looga saaro maadaama halkaas saraakiisha ku sugan ay noo xaqiijiyeen in guud ahaanba gacan ku haynta degmada Ceelbuur iyaga ay la wareegin haddana ay ku sugan yihiin iyaga ammaanka Ceelbuurna uu aad iyo aad loo adkeeyay Ceelbuur in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu booqdo ayaa waxa ay uga dhigan tahay madaxweynaha ayaa raba in uu asaga ku faano in uu gacan ku haynta degmada Ceelbuur mar labaad ciidamada xoogga Soomaaliyeed ay la wareegeen maadaama madaxweynaha 15 May oo madaxweynaha ay tahay maalinkii la doortay ay ku aadan tahay xuska maalinkii la doortay madaxweynaha isagana halkaas uu rabo in uu ku dhigto dabaaldeg sababtoo ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taas waxay uga dhigan tahay sharaf iyo karaamo sababtoo ah isagoo madaxweyne ah ay ciidanka xoogga Soomaaliyeed waxay laba mar gacan ku haynta degmada Ceelbuur ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Ceelbuur tan iyo dib u doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa Al-Shabaab laga saaray deegaano badan oo markii hore iyaga ay ka arrimin jireen oo hadda ay ka arrimiyaan ciidamada xoogga Soomaaliyeed shalay ayaa ugu dambeysay markii cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka oo ay horkacayaan ama amar ka haysta saraakiisha ciidanka xoogga Soomaaliyeed kuwa ugu sarreeyay hadii uu ahaan lahaa taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay iyaga dagaal culus kula wareegeen degmada Ruunrigood oo Al-Shabaab laga saaray muddo 2 sano iyo bar ka hor ah balse ay Al-Shabaab halkaas weerar gaadmaha ay ku soo qaadeen ay kula wareegeen muddo bilooyin ah halkaas ay Al-Shabaab gacantooda ku jirtay balse ugu dambeyn shalay ayaa ahayd markii cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka oo weerar bagal ah ku qaaday ay kula wareegeen Ruunrigood Ceelbuur iyo Abuureyba hadda waxaa si buuxda u maamulaya gacan ku hayntooda ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka Ceelbuur iyo Abuurey iyo Ruunrigood in gacanta ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ay ku soo laawato waxaa sabab u ahaa amar uu bixiyay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed Janaraal Odwaa Yuusuf Raage iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute oo iyaga in muddo ah ama bilooyin ah ku sugnaa fariimaha hore ee dagaalka gaar ahaan degmada Aadan Yawaal iyagoo halkaas u jooga dardargelinta ama dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyagoo har iyo habeen ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ah dhiirigelin iyo bogaadin ula taagan fariimaha hore ee dagaalka sababtoo ah maalmo ka hor ayay ahayd markii taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed halkaas asagoo khudbad dhinacyo badan taaban iska jeediyay waxa uu si toos ah taliya Odwaa u sheegay haddii Al-Shabaab markii hore la dhihi jiray isa soo dhiiba fursad ayaad haysataan balse hadda kadib aan la dhihi doonin is soo dhiiba laakiin ay tahay in meel kasta oo ay joogaan lagu raadsado ama lagu bartilmaameedsado haddii la duqeyn karo iyo haddii dagaalo toos ah la gali karaba fariintan uu taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed maalmo ka hor jeediyay kadib waxaa imaanaya in ciidanka xoogga Soomaaliyeed ay la wareegaan gacan ku haynta degmada Ruunrigood deegaanka Abuurey iyo degmada Ceelbuur oo hadda gacantooda si buuxda ay ugu jirto ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ah waxaana lagu soo waramayaa in hadda deegaanadaas iyo degmooyinkaasba hadda gacan ku hayntooda ay si buuxda u hayaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed sida caadiga deegaanada hadda sida caadiga ah Ceelbuur iyo Abuurey iyo Ruunrigoodba hadda waxaa sida caadiga ah ku soo laabtay dhaqaaqyadii iyo isku socodka dadweynaha iyo gawaaridaba sidoo kale waxaana si caadi hadda ku soo noqday dhaqaaqyada nololeed ee halkaasi markii hore ka jiray Ceelbuur iyo Ruunrigood iyo Abuurey sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in dhaqaaqyo ay ka wadaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed waxaana Ruunrigood Ceelbuur iyo Abuurey hadda ka socda baaritaano ku aadan xaafadaha iyo wadooyinka soo gala iyo gawaarida soo galaba deegaanadaas iyo degmooyinkaas sababtoo ah
waxaa laga cabsi qabaa in halkaas mar labaad ay al-shabaab weerar gaadmaha kusoo qaadaan. ciidanka ayaan hadda waxay muujinayaan foojignaan dheeri ah maadaama taliyaha ciidanka xogta Soomaaliyeed gabi ahaanba ciidanka xogta Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaankaaba uu amar ku siiyay in aan la arki karin askari ka mashquulsan difaaca dalka balse la arki karo askari ku mashquulsan difaaca dalka. hadda kadibna ay go'aankooda ama taladooda uu yahay sidii al-shabaab deegaanada iyo degmooyinka ay kaga harsiiyeen qeybaha gobolada Galgaduud, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose loogu safeen lahaa. ciidanka xogta Soomaaliyeed ayaa hadda waxaa lagu soo waramayaa in halkaas ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay ku beegsanayaan kooxaha al-shabaab ee ku sugan qeybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe maadaama berihii lasoo dhaafay al-shabaab ay xoojiyeen weerarada gaadmada ah ay kusoo qaadaan fariisimaha ciidanka ay ku leeyihiin qeybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Hiiraanba. sababtoo al-shabaab waxay markastaba weerar gaadmaha ku qaadaan fariisimaha ay ku leeyihiin ciidamada gobolada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose balse awaamiir culus maalmihii soo dhaafay ay bixiyeen talisyada ciidanka xogta Soomaaliyeed ayaa waxaa ciidanka loogu baaqay in ay ciidanka hadda kadib habeenna seexan karin, hadda kadibna ay diyaar u ahaadaan foojignaan dheeri ah maadaama al-shabaab ay macquul tahay ama markastaba ay suurtagal tahay in ay weerar gaadmo ah ay kusoo qaadaan fariisimaha ciidanka ay ku leeyihiin qeybaha gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. isku soo wada duub gulufka dhanka kooxda al-shabaab ayaa hadda wuxuu ka bilowday qeybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Hiiraanba waxaana saacadihii lasoo dhaafay gacan ku haynta dowladda federaalka Soomaaliya kusoo laabtay deegaano badan iyo degmooyin badan iyadoo ay ugu dambeeyeen Rundergood, Ceelbuur iyo Abuurey. si kastaba al-shabaab waxaa kaga socda gobolada dalka gaar ahaan Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Hiiraanba gulufka dhanka kooxda maadaama saacadihii lasoo dhaafay ciidanka xogta Soomaaliyeed gacan ku hayntooda kusoo laabatay deegaano iyo degmooyin badan iyagoo ay ugu dambeeyeen Ceelbuur iyo Abuurey iyo Rundergood. Abuurey maalin ka hor ayay markii dagaalyahanada ka tirsan kooxda al-shabaab halkaasi si dhib la'aan ay kula wareegeen balse ciidanka xogta Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa dib uga saaray waxaana hadda Abuurey gacanta ku haya ciidanka xogta Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka si lamid ah Ceelbuur iyo Rundergoodna waxaa gacanta si buuxda ugu haya ciidanka xogta Soomaaliyeed. haddii aad inta ila soo gaarto waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ila channel like iyo share gareysid aad iyo aad ma maasatahay ku leeyahay mahadsanid saaxiib.